والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. داود يا الميل والبعد جوتان وحانو عدينينا وحان هلكن كعدينيا انت انك اوغهي اما انك غرانيو ururkan isku dhawaaqay ee ismagacaabay ee ku andacoonaya ama sheegayo in aanu diinta dibadda ka taaganahay isagu inuu diinta ku taagan yahay sheegtay oo jaanib kamid ah aqeedada intuu qaatay inta kale ihmaaliyay ururkaas waxa uu yahay wixii aan ka ogahay Ilaahay ugu ogyahay ayaan rabaa inaan dadweynaha u bayaaniyo taariikhdooda laakiin xukunkooda waxaan u deynayaa culimadeena ayaan u deynayaa jazakumullahu khayra inay ummadda iyo dawladda inay bayaaniyaan ay si wada jir uga qayb qaataan ee ogaadaan ururkani waxa la asaasay ama Soomaaliya uu yimid markii Soomaaliya ay ahayd 1978 ayaa la keenay waxaana keenay niman arday ka ah jaamacadda Maka joogay oo rag Soomaaliyeed ahaa oo wadaad ahaa waxaanu wada ahayn ardadii Sheekh Maxamed Macallim iyagu hanaga tookroonadaan oo odayaal hayno ahaadaan nimanka noocaasa markay soo ictinaaqeen ay soo qaateen madhabtaas wadaba madhabtu waa takfiir weey dadkii ugu horeeyay ee keena in wax la gaaleeyo mujtamaca Soomaaliyeed in la gaaleeyo dadkii keenay ayay ahaayeen markaan eegay oo aan dhageystay website-da aan galay rag badan oo aan garanayo magacyadooda iga soo baxay meesha aan garanayo oo markii hore odayaal ahaa aan garanayay laakiin inay markaa mabda'a qaateen aan ku ogaan kaga tagay ninkii bayaanka jeedinaya si wanaagsan baan u aqaan Xismaan Cabdulla Roble hadii alla ku roon yahay afarta halkan uga dhawaaqay Soomaaliland nin baan si wanaagsan isu naqaana saddexda kale isma naqaan laakiin waan ku ogaa way ku cadaatay ko Puntland nin baan ka aqooday isaguna arday ka ahaa magaalada Maka ka ahaa oo fikradan soo qaatay oo dalka la yimid afartan ka sano ay lahaayeen waanu qarsoonayn ma ay qarsoonayn dadka yaqaan xarakaadku waa lagu ogaa inay takfiir ahaayeen waliba waxaan idin sheegayaa ninkan hadda ay sheegteen ee Mustafa la leeyahay joogo meesha la yiraahdo Masar kaga dhawaaqay ninka isaga ah waa ragiis xabsiyada Masar ku soo ictinaaqay ku soo qaatay takfiirka ku soo qaatay buu nin mufakir u ahaa magaalada Makuu yimid waa lagu soo dhaweeyay macallin baa laga dhigay jaamacadda rag Soomaaliyeed oo ka tirsan ayuu helay ragii baa soo qaaday Muqdisho ay keeneen 79kii ragii loo keenay baan kamid ahaa ragii diiday baan kamid ahaa markay noo keeneen fikrad faasida inay tahay oo diinta asal ku lahayn oo khilaafsan aqeedada saxiixa ah ee Nabi Maxamed alayhi wasalaam uu nooga tagay iyo saxaabada salaf hadii umma ay nooga tageen ahlu sunna wal jamaa ay leedahay saxda ah inay khilaafsan tahay markaan ogaanay ayaanu diidnay waxaanu ku diidnay waan ogaa waxaanu ku ahayn aniga Sheekh Ahmed Daahir Aways Sheekh Ukaasha Cabdiraxmaan Kadiye intaasaanu ku diidnay waan xasuustaa inta kadib nimankii rag kamid ah Kuwait ku wada nooleen takfiirka way iska ahaayeen mabda'asna way aaminsanaayeen kuma cusbo wax cusub maaha magaca la baxaan asaadiicuna bil xaq la baxaan laakiin waa takfiir aynul takfiir kuwii ugu horeeyay takfiirka dalka keenay ahay dadweynaha waxaan uga digayaa waxaan ku faraxsanahay markii ugu horeyso social media aan galay nimanka markii ay soo baxeen taaliiqaadkii laga baxshay wuxuu ahaa taaliiqaad dhab ah inay takfiir yihiin baa laga baxshay taa lagu ogaado nimankaas waa takfiir afar nin oo kamid ah dalkan halkan magaaladan wadankan jooga afartaba waa la yaqaanaa garanaysa niman maal qabeel ay leeyihiin niman xarakiin ay leeyihiin laakiin waxaan Ilaahay ugu mahadinayaa wax culimo ah oo macruuf oo mashhuur oo la yaqaan oo loogu noqonayo cilmi loogu noqonayo inuu san ku jirin aan ka muuqan taabaan Ilaahay ugu mahadinayna macakoodan ay ku dhawaaqeen Masar ay leeyihiin amiir buu noo yahay bal xaqiiqa ahaan kaana ha lagu daray waxa ay wataan waa fikrad weey ma aha waxa ay wataan wax sax ah waa la ogaan doona waxay kale yiraahdeen anagu qori qaadan mayno baarlamaanna gelin mayno waa runtoodo haday noo helaan awood nooga helaan ay maanta ay awood ay helaan madax noqdaan ilaa wala dhimma nimankaas waxaan hubaa khawaarij asal inay yihiin oo dadka layn doona marka waxaan dadka uga digaya oo Ilaahay la hortagaya oo u sheegaya
nimankaas inay takfiir yihiin caynu takfiir masar bay ka soo bilaabatay ninka mustafa la leeyahay baa keenay caruurtaas dhalinyarada Soomaaliyeed buu ku soo shubay dalka waxay ku timid barigii siyaad baray timid